maalinta 12aad cashadii ugu dambeysay. waxaa la gaaray maalinta iidda kormaridda ee Basax, loona gowracay wanka oo ay ku iidayeen addoommadii waddanka Masaarida uu Ilaah ka soo furtay. Sayid Ciise wuxuu horay u diyaariyey Butros iyo Yoxana si ay ugu diyaariyaan kibista kormaridda. aad ayaan u rabay inaan iidda kormaridda idinla cuno ka hor intaan la isilcin. waan idin sheegayaa, mar kale kibista ma idinla cunayo ilaa boqortooyada Ilaah ka hirgelayso. rabbiyow Ilaahow, adigaan ku ammaanaynaa, boqorkii koonkow oo ka keena canabka geedkiisa kan qaata oona isla wadaaga dhexdiina. waqti kale canabka geedkiisa ma idinla cabi doono ilaa ay boqortooyada Ilaah ka soo muuqato. rabbiyow Ilaahaynow, adigaan ku ammaanaynaa, boqorkii koonkow kan dhulka kibista ka soo bixiyo. kibistani waxay matalaysaa jirkayga oo daraaddiin loo bixiyey. u cuna si aad ii soo xasuusataan. dheecaanka canabka waxay matalaysaa axdiga cusub ee Ilaah, taasoo ah dhiiggayga oo daraaddiin loo daadiyey. oo bal eega, kan aniga ikhyaami doono halkan ayuu fadhiyaa. aniga wiilka aadanaha waan dhimanaa siduu Ilaah horey iigu talagalay, laakiinse qofka aniga cadowga ikhyaama wuu halaagsamay. qofkaas yuu yahay ma aniga kow maxaa muujinaya xiriirka iyo jaceylka uu Ciise Masiix u qabo 12-ka. 2 sidee ayuu Ciise Masiix ula dhaqmay qayaanoolaha. 3 maxay cashada rabbiga aad muhiim ugu tahay.